waxaanu soo gaarnay darsigii saddexaad waxaanu ka bilaabaynaa xadiidka 11 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. حديث كان بخاري يا مسلم باوريي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو هريرة وحليه النبي صلى الله عليه وسلم باوحيري: حق المسلم على المسلم 5: مسلمكو حق وكليهي walaalkiisa kale ee muslimkiihi waa 5. riwaayadan saas bay tilmaamaysaa. riwaayaad kale ayaa jira, laakiin riwaayadan waxay tilmaamaysaa muslimiintu xuquuqda isku leeyihiin waa 5. muslimku waa qof walba oo laa ilaaha illa allah yidhi, lawnkuu doono, midabkuu doono, luqaduu doono, waddankuu doono, qaaraduu doono ha joogo. laa ilaaha ila allah baa laga wadaa qofka ay idin kulmisay ayaa muslim la yidhaahdaa. taas waya midaan doonayno awlaadeenna iyo caruurteenna inaan ku tallaallo oon barno muslimiintu inay walaala yihiin. inama almu'minuuna ikhwatun, sida uu rabbiga ilaahay jala jalaaluh. xaqu lmuslimi cala almuslimi 5. haddaa muslimiintu xuquuq badan bay isku leeyihiin, bal xadiidkan aanu aragno 5 u tilmaamayo. 1: raddu salaam, salaamta marka lagu salaamo inaad celiso oo wacalaykum assalaam aad dhahdo. raddu salaam xuquuqday muslimiintu isku leeyihin waxaa ka mida marka koobaad inay isa salaamaan. oo haddaad aragto qof muslima ama garo ama ha garanine, haddaad calaamadaha iyo aahaarta islaamnimadaba ku aragto, xaq uu kuu leeyahay xuquuqda waxaa ka mid a inaad dhado assalaamu calaykum. 3 qaab baad salaanta u gudan kartaa. inaad dhado assalaamu calaykum, salaantana xusuusta tanwiin iyo tacriif labadaasay ku bannaan tahay. inaad assalaamu calaykum oo tacriif oo shamsiye aad dhigtoo dhahdo, alif iyo laam aad geliso dhado assalaamu calaykum. ama inaad dhahdo tanwiin wa salaamun calaykum. labadaa xusuusta marka koobaad. waxaa kuu bannaan inaad dhahdo assalaamu calayka, ama assalaamu calayka waraxmat ullah, ama assalaamu calayka waraxmat ullaahi wabarakaatu. calaykumna waad dhigi kartaa xataa qofku isagoo keli ah. mid kastaba ha noqotee 30 ajir baa laguu qori. qaala tabaaraka wa tacaala: waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha. haddii idin salaamaan oo haddii laydin salaamo, midii mid lamida u celiya ama ka fiicnaadoo 3duba dhammaystira. salaanta inaad celiso waajib bay kugu noqonaysaa. waa meesha culummadu ay dhahaan, tafaasiisha meel raba inaan sii galo, raalli noqda, waxaan rabay inaan si kooban u akriyo. raddu salaam, horta waa in salaanta aad radidaa. xuquuqda aad qofka muslimku leeda waxaa weeye goortuu ku salaama inaad dhahdo wacalayka assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu, ama wacalaykum assalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatu, ama wacalaykum assalaam. hadba sida adugu ajirka aad u doonayso biidn illahi tabaaraka wa tacaala. raddu salaam, inaad salaanta u celiso wacalaykum assalaam dhahdo markii lagu salaamo. taa waa qodobka koowaad oo muslimiintu isku leeyihiin. qodobka waa la dayacay. hadda qofka waxaa laga yaabaa inuu isku salaaminba lasgara maro. xataa muslim iska daaye, 2 Soomaali baad arkay ayagoo isgara maraya. khalaas, khatar wey. ama salaantii dhallinyaradu intay ka tageen inay haay iyo waxa la isku salaamo ee aan islaamku keenin in la isku salaamo. awal kelimada koobaad ee muslimiintu la doonayo inay isku bilaabaan waa assalaamu calaykum, waana kelimad tilmaamaysaa nabadgeliyo. xoolahaaga waan kuu nabadgelin, oo cirdigaaga iyo sharaftaadaan kuu nabadgelin,
oo naftaada ku nabadgelin weeye macnaheedu maxaa yeelay ilaahi baa du salaama muslimkuna waa qof nabadgelye u saaxiiba assalaamu calaykum qodobka labaad waa ciyaadatu lmariid qofka xanuunsan in la soo booqdo waa xuquuqda muslimiintu isku leeyihiin hadduu qof muslima jirrado hadduu qof muslima xanuunsado xaqa uu kugu leeyahay muslimka kalow waa inaad soo booqataa arrintaa maanta ma noogu jirtaa weliba dadka qurbaha u soo kacay ama u soo qaxay baan u jeedaa arrintaa aad bay ugu liitaan sax way isduugaan waa run janaasada waa la israacaa waa sax laakiin booqashadu marka hore waa yar tahay qodobka ogaada waa xuquuqa isku lena muslimiinay wa ciyaadatu lmariid ilmaheenna waa inaan barnaa markuu aabbuhu ama hooyadu xanuunsan tahay in la booqan karo aabba see tahay hooyo see tahay xalay ma xanuunsatay ma seexatay carruurteenna ma barno ma naqaano walidaalika haddaad ada warawa hooyada way jiiftaa buli hadda way xanuunsantay dan kama leh kubad buu iska aadayaa gabadhina waxaa laga yaabaa inay filin iska daawanayso qodobka saddexaad waatibaacu ljanaa'iz qofkii xanuunsanaa sow ma garanaysaan haddayba geeri ku timaado ama qof kalaba ayi qof haddii geeri ku timaadaay xuquuqda uu qofkaa nagu leeyahay waa inaanu janaasadiisa raacno waa inaan dhaqno waa inaan kafanno haddii kafan aan u helayno kadibna waa inaan qubuuraha muslimiinta ku duugna waa inaan ku tukanno janaasada waa inaan raacno ajir weyn bayna leedahay itibaacu ljanaa'iz baa la yidhaahdaa ragga ayay arrintan ku dhacaysaayo umu catiya xadiidkeedii waxay leedahay saxiix ahaa nuhiinaa can itibaaci aljanaa'izi walam yuczam calayna haddaanu dumarka nahay waana laga reebay inaan janaasada raacno laakiin nalaguma adkaynin saa daraaddeed janaasada raggaa la rabaa inay raacaan waitibaacu ljanaa'iz qodobka afraad wa ijaabatu dacwati haddii qof uu weliimo kuugu yeedho ama wanqal iyo caqiiqo kuugu yeedho ama aroos kuugu yeedho ama duco kale oo bannaan oon sharciga uusan reebin uu kuugu yeedho inaad ajiibto khaasatan caqiiqada iyo wanqalka iyo guurka labaduba wa ijaabatu dacwa weliba axaadiida qaybo ka mida waxay tilmaamayaan qofka aroos loogu yeedho oon ajiibin inuu nebi moxamed caasiyey sala allahu calayhi waaalih wasalam laakiin laba saddex qodob a halkaa ka yar taabto markaad ajiibayso waa inayna meesha macsi oolin hadday macsi taalla waa diidi kartaa haddaad macsidaa zuulin kartana waajib bay kugu noqon inaad tagto haddaad khafiifin kartana waajibkay ku xigi waa laga yaabaa inay sunno kugu noqoto min baabi alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar hadday dhib ka weyn ka dhacayana xaaraan bay noqonaysaaba munkarkii laftiisii munkar ka weyn hadduu ka dhacayana xaaraan bayba noqonaysaaba maanta aroosyadeenna haddaanu qiimayna waa cajaa'ib dee waad garanaysaan aroos aad dhihi kartaba waa la tegi karaa waa yarya waa qoobka ciyaar waa macsi waa muusig waa hoballo waa fanaaniin waa ikhtilaad waa dadkii oo qaaqaawan waxaasu waa iyadoo la daahayo saacad dambe shanta habeen subaxnimo 6 subaxnimo dulmi badan baa ka jira iyo macsi badan marka qofka hadduu dhow kuma jiro aroosyada maanta dhaca insha allah kuma dambaabaya rajaynaya haddana saa ay tahay waa in la hubsado oo wixii wanaagsan la isku caawiyaa wa ijaabatu dacwa qodobka ugu dambeeyo oo shanaad oo xuquuqda muslimiintu isku leeyihin waxaa ka mid a wa tashmiitu alcaatis qofka hadduu niso hadduu dhaho oo alxamdu lilah yidhaahdo in la dhaho yarxamuka allah kii alxamdu lilah ilaahi nisoodayna uu dhaho yahdiika allaahu aw yahdiikum allaahu wa yuslixu baalakum laakiin waa inuu alxamdu lilah yidhaahdaa 3 jeer wixii ka badan hadduu hindhisoodana shafaaka allah wa caafaaka allah baa la dhihi maxaa yeele marad iyo xanuun iyo samboor buu qabaa laakiin wixii 3 ku eg biidn illah alxamdu lilah hadduu dhaho waxaad dhihee yarxamuka allah asna muxuu dhihi yahdiika allah waa tarbiyada la doonayo ardada in la baro
caruurta in la baro waalidku inuu baro reerkuna inuu dhaqan u ka dhigto xadiidka 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه حديث كان بخاري يا مسلم بصوصر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو هريرة وحوليه نبي جايري صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة قفك جنازة يقف انتي راعة قفك جنازة يعني قف انتي قفك حاضرة ماشي أي تالو مسجد ماشي لقول دقي ماشي دونت الله كدغه حتى يصلى عليها انت لقيت كان هيو لا جوغي بمعنى ولدت كذيوي ددكي كنت كذيبو كميد اها فله قيراط هل قيراط بوليه قيراط في قدال باقي شيء دونه اي حج لكن ومن شهدها قفك جنازة الراعة حتى تدفن انت لقى آسيو قد كاللقى قلنا ينا لا جوغا فله قيراطان لبا قيراط بوليه كي وريا كونوي نبي صلى الله عليه وسلم صحابته لفظا كلمه قيراط ليله هذا كو ادكات sida laga yaabo hadda markaan sheegaynaba dadkan horay u aqoonin ay ugu adkaanayso qiraad maxaa la yiraahdaa nabigu sallallahu alayhi wasallam markii la weydiiyo yiri wamal qiraatan qala mithlu aljabalayn al'azimayn wuxuu yiri waa laba ajir oo buura laba buur oo waaweyn la eg idan qiraadku maanta halka markii la joogo waa ajirka iyo xasanaadka iyo thawaabka qofka looga qorayo maydka uu xaadiray ee uu ku tukaday haddana uu aasay laakiin qiraadka asalkiisu waxaa la yidhaahdaa lacagta ka jajabka ahee 10 iyo 5 iyo qadaadiicda ayaa la yidhaahdaa walidaalika nabigu markuu maka joogay sallallahu alayhi wasallam uu yaraa wuxuu yiri ariga waxaan ku raaci jiray qaraatiid yani lacaga shilimo yaryar baan ku raaci jiray oo googo ah oo sarifka oo birta ayaa qaraatiid la yiraahdaa laakiin halkan markii la joogo oo xagga cibaadada qiraadka waxa laga wada ajir iyo xasanaad iyo thawaabka weeye waxa laga wada araaytu marteen xuquuqda ay muslimiintu isku leeyihiin ajirka qofka raaca qof dhintay ila lagaga tukado ila laga aaso idan ajirka labada ajir ee waaweyn yanan islaafin biidnillahi tabaaraka wa ta'ala ama xadiidka 13 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه متفق عليه حديث البخاري مسلم باصوصاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة وحوجلي سوى النبي أخلاق ليسه iyo dhaqankiisa nooga sheekaynaya annagana inaan ku dayanana laga doonayo oo ujeedada diinta oo dhanba waa dhaqan waa ku dayasho waa amar qaadasho waa ka hadhid wixii laga reebay aad ka hadho walidaalika dhaqankii nabiga aan dhageysano ana calayhi salaatu wassalaam ana barbar dhigna maanta in badan oo inaga naga midon anigu aan kamid ahay bal dhaqankeena xagga raashinka aan barbar dhigno abu hurayra oo nabiga noo tilmaamay wuxuu leeyahay ama noo sifeeyay sallallahu alayhi wasallam ma aaba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nabigu ma ceebaynin mana dhaleecaynin waxna kama sheegin ta'aaman qattu raashin waligi nabigu waxba kama sheegin raashin wax la cuna ha noqdo wax la caba ha noqdo wax qallalan ha noqdo wax qoyan ha noqdo shay raashina wax la kariyo ha noqdo wax iska bisil ha noqdo raashin wax cunaha la mariyo dheh cunahaba wax la mariyo oo la cuno nabigu weligii ma ceebaynin weligii ma dhaleecaynin waxna kama sheegin calayhi salaatu wassalaam haddii loo keeno laba mid unbuu samayn jiray in ishtahaahu akala
hadduu nabigu sala allahu alay wasalam uu jeclaado oo naftiisu ay jeclaato oo naftiisu ay ishtihaysa u doono akalahu waa cuni jiray si hanii'an mari'an buu cuni jiray si qiimo badan oo naftu ay jeceshahayoo shukrin nicmada allana ay ku jirta buu cuni jiray calayhi asalaatu wassalaam wa in karihahu taraka hadduu nabigu naftiisu ay nacdana nabigu asagoon ceebaynin buu iska riixi jiray wuxuuna dhihi jiray hadda ma cuni karo waxba kama sheegi jiray calayhi asalaatu wassalaam haddaba carruurteenna maxay nooga baahan yihiin inaanu nicmadan aan barno maanta waanu caynaa kolka hore waa la urin marka hore markaasaa la ceebaynayaa uf baa laleeyahay bacda madow baa lagu guri qashinkaa lagu guri allahu akbar dadna gaajo iyo baahi ayay u dhimanayaan oo u baaba'ayaan caalamulislaami marka akhlaaqda aan baranno oo dhaqanka aan baranno oo israafka aan iska dayno oo cuntada la daadinayo aanu iska dayno kolka hore cunto kooban ha la kariyo haddii la kari waayana faranjeerka intii la gashado ciddii faranjeer bale cuntada intay taallayaan ilmaha cunto kale la barin oo yaan la siinin laakiin ilmihii in la yidhaahdo maalin walba cuntada ha la daadiyo khalaas khatarteeda wey maa caaba annabiyu sala allahu alay wasalam طacaaman qatu in ishtahaahu akalah wain karihahu taraka marka nicmada ilaahay lagu shukriyo nicmada ilaahna yaan lagu kufrinin haddaanu shukrino ilaahay baa noo ziyaadin arsaaqada lain shakartum laaziidannakum haddaan shukrin weynana walain kafartum haddaan kufru nicam haddaan ku dhacno ilaahay wuxuu leeyahay ciqaabkayga iyo cadaabkayga iyo naqsiga aan xoolaha idinka gelinayo ee barakada laga qaadayaay waa mid muxaqaq oo dhacaysa xadiidka 14 can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal xujibat annaaru biاshahawaat وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه حديث كان بخاري مسلم باوريي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحوليه أبو هريرة نبي يري صلى الله عليه وسلم حجبت النار نار توحى له السيري نار توحى له هريري نار توحى لنعيض الله بالشهوات وحي نفتش عشاي زندي khamradii xaaraamtii oo dhan waqti dhammayskii filimadii xaaraamta ahaa wax alla wixii naftu itibaacu lhawaa salaad la'aantii soon la'aantii zaka la'aantii wax alla waxay naftu jeceshahay oo dhan ayaa lagu hareerayey markaasaa naftu markay wixii samaysaba naartii bay marka gelaysaa meeshii inanay waxa soo dhaaftay wixii ku hareeraysnaa naarta ayaad soo dhaaftay marka qofka waxa weeyaan boos buu naarta ku yeelanayaa nacuudu billahi tabaaraka jalla wacala waxujibat iljannatu bilmakaarih jannadana waxaa lagu hareereeyey oo lagu seereeyey oo mooro ay u tahay bilmakaarih wax alla waxay naftu necab tahay oo dhan waa weysadii waa salaadii waa xaaraamtii oo laga tago waxaasoo dhan kulli wax alla waxay naftu nacayso oo dhan ayaa lagu hareereeyey markaasaa qofkii waa ka fogaanaya nafti baa nacayse salaadii buu ka tegayaa weysadii buu ma weysaysan kara buu leeyahay hurdadii buu sii wadanayaa soonkii buu ka tegayaa ma soomanaan kara buu leeyahay intaas oo saacadood ma soomanaan kara buu leeyahay xajkii ma xajin kara buu leeyahay wahaakada nafta jannada waxaa lagu hareereeyey wax alla waxay naftu ay nacayso oo dhan allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryayaa anigiyo idinkaba inuu nagu anfaco axaadiisa rasuulkeenna sala allahu calayhi waaalihi wasalam inta aanu kaga kulmayno darsiga kan xiga waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allaahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astagfiruka waatuubu ilayk wassalaamu calaykum waraxmat